waxaan oo wanaagsan daawadayaasha qaayaha iyo qadarinta mudan oo meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada YouTube channelka Ibrahim Bro Network ee IBN. Haddaba IBN wuxuu fursado joogto ah siin doonaa dhalinyarada kala duwan ee hanka siyaasadeed iyo midka bulsho kale isla markaasina doonaya inay horumariyaan bulshadooda. Ayadoon arrintaasi ka duulayno waxaa maanta aan la kulmay Engineer Rashid barasho wacan wanaagsan wacan kusoo dhawow IBN saaxiib. waan dhawahay maantada haye dhawahay aad iyo aad baan dhawahay Mhm. sida quruxda badan oo maanta ay soo booqatay maasha aad Allah. baan u mahadsantahay Bal marka ugu hore ani adi rag isnaqaanaan nahay Sar. abaar wada noolaa saaxiiba ah. Sar. Bal qofka aan ku garanayn aan welina soo booqan maba hadeer baa ay ugu cusub tahay IBN waa kuma Rashiiday. niyow aniga waxaan ku magac dheeraa engineer Rashid Mhm, wiil maxaan ahay Gaaris mhm, kuna bartay magaalada Gaaris mhm. magaalada Gaarisna ilmo ku dhalay Gartay. nin maantana isfaas le Mhm, waa ilmo iska farsamay waana gartay, magacan engineer Rashid muxuu ii baxay 2020 September gartay. that time the first time oo shaqadii uu qoray oo national government aan kasoo shaqeeyey water resources management and dowlad aan kasoo shaqeeyey Mhm, 2020 haddana waxaa laga joogaa adi 4 years adiga last year baan resign garay shaqadan mhm. ka horena Kenya Rail Force aan kasoo shaqeeyey intaan kasoo shaqeeyey warma Gartay. Bal marka intaan weli CV-gaada u gelin Mhm. horta Engineer Rashiiday goormuu dhashay magaciisa oo buuxa. aniga waxaan dhashay 1999 Mhm, hadii magaalada Nangaaris aan ku dhashay gartay, waxaan ku dhashay meesha nadaan Makuti Hotel town gartay. meesha baan Magaalada bartankeeda. magaalada dhexdeeda ku dhashay Maasha Makuti Hotel museyga biya gartay. meesha Marka maxaad baratay waxbarasho ahaan? aniga graduate waan bogay waan bogay diploma waan bogay Maasha maanta Allah. nin wax iska maaragtay iska xamaashaana Haddaad 99 dhahday waxaan soo xasuustay gacankii Gen Z. In badanna waxaan arkay adigoo bulshada abaabulayo dhalinyaro badan horboodaya. Goormaa bilowday inaad arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqdo? niyow bulshada inaa u hadashaa wanaagsan Mhm, hadda haddaan dhahno waa aamuseena hadda waad iska garanaysaa siyaasiyiin ilaahay ka cabsoonin ma jirta mhm, siyaasiyiinna maxay jiraan ummadda xoolooda iska dhunsanayaan Yeah. haddii aan aamusnaa wax noo maqan mara mhm, ilaahay ka suko wax noo maqan oo kale mara marka aniga hadda aan kula hadlayo siyaasiyiinta dadka aan badi aan maaragta dhaliilo waa kuwa maaragtay ummadda u fiicneen kuwa ammaanayo oo aan support garaynayo ummadday u fiicneen ummadday u fiicneen marka hadda dhalinyaro badan oo maxay jirtaa asxaab nahay igu support garaynaysa arrintaa dhalinyarana igu support garaynayna way jirtaa marka dhalinyarada igu support garaynayso waqti weliba waan isku imaanaa waan wada hadalnaa waxaan ku wada hadalnaa arrimahan bulshada la dulminayo oo lagu dulminayo hadda bilcaanta shaqa lagu qoraynin dhalinyarada shaqa la qoraynin dhalinyarada balwad iska bilaaba waxyaalo badan Mm. marka aniga habeenii maalin baraha bulshada kasoo hadlaa siday ummadda wax loogu qabto mhm. marka waqti walbana waan u taagnaanayaa waana usoo hadlaya marka dad ba ay dhahaan mar walba ay dhahaan amaa lagu dilaa amaa lagula baxaa ani cabsiga ma jirto in cabsoodana miyi weligeena dib uma goran umana goran dooni marka maxaan leeyahay dhalinyarada weli ani maxaan ku tashkiilanaya xoolaan lala soo dhiibaa oo dowladda national government soo dhigta Sax. maxaana loo soo dhiibaa dadweynaha magaalada Gaaris qabiil walba ku nool garra tuuraan qabiil walba marka dadweynaha national government waxaa laga soo dhiibo inay reer Gaaris soo gaartaan marka siyaasiyiin maxay jirtaa reer Gaaris soo gaarsiinayn Oo meel waxay u fadhiya. ayaga meelo kale Dubai uu guryo ka gadanayaa USA uu guryo ka gadanayaa xoolaha dadweynaha waa marka marka dadkaasaan daba galnaa dadkaasaan daba taagnaanaa waan dhibnaa luquntaan u galnaa Gartay. marka aniga wax dad oo maaragta qabiil iyo qoran iyo waxa ma aqaano marka haddaan dhalinyarana Mhm, dhalinyarada weli maxaa ku tashkiilinaya inay media imaadaan meesha maanta keli oo ay codkooda ka bixin karaan mhm, waa media maalin maxaa jirtaa mhm, arrin maxaa jirtaa oo hadda aan kuu sheegi karo mhm. nin dhalinyaro baa nin la dulminaya Gartay. boolistu tegey Mhm, boolistu markuu tegeen ninkii la dulmin waxba looma qabanin haye. laakiin markuu media arrinta keenay Mhm, ninkii la dulmin waxa loo qabo gartay. sharciga waxban kama qabanayo laakiin media marka la keenay
dabkay kusii horisay macnaha wax baa loo qabtay marka media waa meesha keli maanta aad ummadda qofka aad rabto inaad ku dhaliisho aad ku dhaliili karto qofka aad rabtona maaragtay wuxuu yahay inaad sheegto aad sheegi karto waa meesha keliya lagu cilbixi karaa lagu cilbixi karaan leeyahay marka dhalinyarada ha fahmaan aaladan media ha soo galaan isku hadlaan aan dhihi lahaa marka ma jiraan dhalinyaro kaloo sidaadoo kale oo arrintan daneeya oo aad iska shataan gaarisa dhexdeeda haa dhalinyaro way jiraan aad bay u badan yihiin asxaab badan baan leeyahay dhalinyaradan haddii aniga kuwa hadda aniga aan saaxiibanahay badi waa niman iska yar cabsoodaan sax أنا always waxaan dhahaa war cabsida iska dhaafa hal mar aad dhimanaysiin laba mar dhimanaysiin cabsida iska dhaafa yaay baa rag niga dhigay xaggiina boost marka aniga markaan aan soo gelayo media rashiidey waad ii sheegtay habka aad u howlgashaan iyo sida aad u shaqayso iyo cidda aad caawisid xogahaas faraha badan ee aad ku howlgashaan halkee ka heshaan niyo wax igu soqodray ma jirto nin iska shaqaysto oo maanta wixiisa maaragtay dadka tabaalaysan oo kale seed ku heshaa inay tabaalaysan yihiin oo kale ilaa gaarisa waa magaalo weyn hadda niyo like dad iska dhibaataysan ay soo wacayaan like maamo wiil ka tahriibay maama dab fidsan way soo wacayaan marka bulshooyinta u gudbiya wiilal ilaahay wax siiyay oo hadda qurbaa iska joogaan oo xoolo ilaahay si oo Soomaali ay baa soo hadlayaan barnaamijda waxa la qabanayna barnaamijyo noo soo dirnaa صح sidii maamadii aan ku caawiyo marka waa barnaamij samafal ah sidaad hawsha aad ku waday waa laakiin samafalnimada aad baan waqti gelin jiray laakiin hadda waqti ma gelin dib aan ugu gudbaa hadda maxaad xoogga saartaa diiradda saartaa hadda xoogga maxaan saaraa siyaasadda gartay siyaasaddan sidii maaragtay siyaasiyiinta dadka soo doorteen sidii wax ugu qaban lahaayeen hadda dhalinyarada maxaan rabaa inay wax loo qabto shaqo la qoro bilcaantan shaqo la qoro odayaashan haddii lacagta maaragtay retirementkooda xoolahooda wixii la siiyo national government looga soo qaado marka waxyaalahaas aanay markaa aan xoogga ugu weyn aan saaran waa meelaha markaad aragtid qof dhalinyaro ah oo qaab qabiil loo abaabulayo ka injineer rashiiday ahaan maxaad dareentaa adiga sideed se uga falcelinaysaa niyow qabiilka marka hore hadda aniga reer gaaris haddaan nahay qabiilka saa naguma sii weyno gartay qabiil aniga maanta waxba nooma tarayo marka dhalinyarada badi dhalinyarada badi ninkiis wax maaragtay maanta self trustooda ay ka arkaan yar raacaan sax marka aniga hadda dhalinyarada hadda badi ma dhihi kari maanta dhalinyarada magaalada gaaris qabiil ay aqaan sax maanta dad qabiil aqaanin inay yihiin oo la socda marka waxaan dhihi lahaa qabiil waxba ma tarayo qabiil ha la iska dhigo banaanka laga maro soomaalinimadaas aa isku raacaan dhihi lahaa laakiin rashiiday dhanka kale hadalkaadaas haddii aan tixraaco sidee lagu dhihi karaa dhalinyarada gaarisa qabiil ma yaqaanaan iyadoo aan ognahay in qabiil isku doorto siyaasiyiinta qaar laftoodaba aan ka maqalno annagoo reer hebel ah annagoo reer qurac ah reer qansax ma yeelayno waxa ay doonayaan sidee qabiil noloshaaba ka mid ah soo maaha qabyaalada iyo qabiilka niyo qabiilka waxa noo keeno marka waa in dhalinyaro markaan nahay waxa qabiilka noo keeno kuu sheegaya qabiilka maxaa noo keena hadda aniga aabii camal gartay waa nin isku odaya sax qabiilka asaga ilay baariya ahbo heblo dooro dabcan ha waa in adeerka waa walaalka marka qabiilka waa waxa de keligaana guri walba wey qabiilka waxa noo keeno waa odayaasha badi marka odayaasha waa aragtay wax walba qabiil bay ku dhintay waxaa kaloo jirta aanba ku xasuusiyey arrintan negotiated democracy dimuqraadiyadda laga xajoogo qofka hoggaan maba noqon karo iyadoo uu qabiil soo saaran soo ma sax dhanka kale odayaasha waay aniga wax hadda ku sheegayo waxaa leenahay waa odayaasha ninka asagoo marka hore qabiilkiisa soo marin maba soo istaago soma arkin dabcan ha waa inaa qabiilkiisa ula kulmo uu qabiilkiisa kasoo dhammaado ka dambe uu adinka kale u imaado sida soomaalida kale uu tago marka waxaa qabiilna barayo oo mar walba qabiil nagu dhacayo waa odayaashana waxaan dhihi lahaa qabiilka inay naga daayaan haddaan dhalinyarada nahay wallahi ana qabiil hadda aawadaaqan saaxiib nahay abdallaan saaxiib nahay adigana nin awliyan saaxiibana anin awliyan baan hadda hadda gaarasan ku noolahay soma abdallana saaxiib baan aawadaaqna saaxiib baan sax marka qabiil ma aqaan aniga okay kulley barnaamijka waan iska soo gaabsanaynaa maanta waxaan se rajaynayaa inaad naga aqbali doontid marar kaloo fara badan inaad kasoo hor muuqatid channelkan Ibrahim Buro Network ee IPN marka
aragti ahaan injineer Rashide ahaan haddii maanta la dhaho Gaarisa qof ku xul oo dad kale aanan codeynin qof noocee noo xuli lahayd gabanaha Gaarisa. gabana gaarisa aniga maxaan dhihi lahaa weli lama tashanin oo maanta gabana weli lama tashanin Si qoys fiican. sanaan laakiin aniga tayd haddaan fiiriyo ogaadinimo haday jirto wiilka cabdul xaajin ah waa wiil maamul aqaano waa wiil maaragtay maanta da-yar dhalinyarada fahmi karo bilcaanta fahmi karo khabiir haddii la iska dhaafo dhinac loo dhigo la dhaho yaa maanta magaalada wax ka qaban kara Gaartay. waa cabdul Cabdul Maxamed Yuusuf Xaaji sanata hadda. sanadkan Okay, laakiin injineer Rashide waxaa la isweydiin karaa Cabdul muddo 10 sano ma ku dhow yahay hadda intuu xilka hayo. صح Sanatana wuu ahaa صح shakhsiyan asaga muxuu u qabtay reer Gaarisa oo hadda aad ku doorbidaysaa in asaga la doorto. نو صاحب marka hore sanadka bajal ma qabo Kow, waa nin iska bishaar loo sax. bishaarkan waa handa mawduuc oo wax badan ma aha. wax badan ma Mashaariic Marka- kale oo soo martana waa. marka laakiin wiilashan hadda wiilkan ay dhahayaan cabdul xaaji intuu dhalinyaro wax la qabtay intuu dhalinyaro wax la qabtay inta dhalinyaro u support gareeyay intuu dhalinyaro oo maaragtay KDF maadada police maadada intelligence news maadada ODPP Facebook shaqo qor way badan tahay runta dib isku sheego marka waa nin dhalinyarada shaqaaleysiyo bilcaanta gabdhaha wiil badi gabdhaha shaqo qora marka dumarka iyo bilcaan. dumarka aad waa nin maaragtay shaqo qorinta aad ugu fiican hadda maxaan leeyahay haddii uu soo galo maantana shaqo uu qori karo Gaartay. dhalinyaradu uu shaqo qori karo dhalinyaradu uu midayn karo odayaashu midayn karo bilcaantu midayn karo magaaladan inuu bilicdeeda usoo bixin karaa amisan hadda cabdul cabdul doorto haddii Cabdul la doorto waxaad aaminsan tahay dhibaatooyin fara badan oo hadda jira qabiil la fiirin qabiil la fiirinin in uu daawo u noqon karo. taas aan amisan aniga Gaartay. Marka adiga kulley hadeer maadaama waxiba ay bilow iska yihiin laakiin waxaa leedahay kuuraha soo socdo halkaaga nafar waxaad ugu ridi doontaa Cabdul Maxamed Yuusuf Xaaji. haddii reerka la heshiiyo waa haddii la heshiis la gaaro oo la isku fahmo cabdul in la dhiso waxaan ogahay in adiga Cabdul kala saami ahaan siyaasadda kasoo aad kala dhinaca kasoo jeedaan. Ka waran haddaa odayaasha inta calacalaysay ay ku yeeraan ay ku dhahaan waryaa marka hore waa runta nin walba qabiil nin walba oo talbu ka dhashay culiyan hadda aniga 10 sana na kursiga aniga hadda nin baan hadda rabaa inaan dowladiisa soo dhiso waa nin ay dhahayaan nadiif jaamac sanadkan wata sax. marka nadiif sanadkan saan ku dooro saan ku soo gelin karo waa inuu cabdul ana ka dhigo gaban Gaartay. nadiif haddaan rabo inaan sanadkaas sii wado nadiif haddaan rabo sanadkan nimin aan ku dhiso waa inaan soo dhiso Cabdul Xaaji. ha Marka waxaa jira wax balance political balance oo dee aniga adiga aan isla garanayno. sax saddex reer baa Gaarisa u badan waa laba kamid inay heshiiyaan si maxay eeday dowladda markaa loo soo dhiso. Marka waxaa leedahay dan siyaasadeedan sidoo kale ku wata Cabdul Maxamed Yuusuf. niyo hadii meeshan ma garanaysaa iga bixiyaan kaa bixiyo waa Haye. mar daqiiqada haddaan aan galo adigana waa inaa soo riixdo anigana aan ku riixo Gaartay. sidaas waa siyaasaddan Gaaris nin keligiis daqiiqa iska bixin kara ma jirto Gaartay. Yow barnaamijkaas iyo kuwa kaloo fara badanba waxaan kaga hadli doonaa barnaamijyadayna soo aadan. Marka aad iyo aad baan saaxiib kaaga mahadcelinaya sidaad iga ogolaato waraysigan waqtigaada aad inoogu hurtay mahad kaa gaadho. Mahadsanid.